kulanti wacan u wanaagsan qayaarta wada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaana waxa ka mid noqonayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo shir gudoomiyay kulan heer wasiir gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maanta shir gudoomiyay kulanka golaha shacabka maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horeysay aqoonsi siiyay qaar ka mid ah injineerada ka howlgalo magaalada Muqdisho kulan duco iyo quraan akhris loo sameeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay 2019 xarunta maamulka gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe oo booqday deegaanka Baarsanguuni oo dhawaan dagaal ku dhaxmaray al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shir gudoomiyay kulanka golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga shanaad kulankiisa labaad ee aan caadiga ahayn waxaana kulanka shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ajendaha kulanka waxa uu ka koobnaa dhaarinta xildhibaanada cusub kelmadda soo dhaweynta gudoomiyaha golaha shacabka iyo hadal jeedinta gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika waxaana ugu horeyn habdhooraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo dhaariyay Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo si rasmi ah uga mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gucada oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taal billahi tawfiq intaasi kadib gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo hadal kooban kulanka ka jeediyay ayaa kulanka aan caadiga ahayn ee golaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka bariga Afrika iyo tiimkiisa oo maanta xaruntan lagu soo booqday baan soo dhaweynaynaa gudoomiye adiga tiimka waxaan leenahay soo dhawow Jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhawow golaha shacabka xaruntooda ku soo dhawow golaha isfadhigooda ku soo dhawow adiga tiimkaaga aad baan ugu faraxsanahay inaad soo booqato waa maalin taariikhi ah markii ugu horeysay baa Soomaalida qaar dhihi jireen haddana waa markii ugu horeysay baan leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo ka mid ah bulshada bariga Afrika gudoomiyihii baarlamaanka soo dhex fadhiisto oo baarlamaanka ku soo booqdo ayadoo Soomaaliya xubin ka tahay bulshada bariga Afrika gudoomiyaha marka waxaan leenahay soo dhawow waxaad joogtaa dalkaagii labaad adiga oo wada metelaya dhammaan bulshada bariga Afrika baarlamaankoodii baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay baarlamaanada aad metelayso waan ku soo dhaweynayaa sidaad maaragtay la kulantay Soomaaliya wixii la soo maray muddo dheer dalkan Soomaaliya dhibaato dheer soo maray alxamdulillah maanta waxaa la dhihi karaa waxaa cagta saaray deganaansho iyo dowladnimo maaragtay inkastoo waxyaalo yaryar caqabad weli dalku baaqi meelaha qaarkood ku yihiin laakiin isbedel badan baa ka jira bulshada Soomaaliyeed waa dad firfircoon waxaan runtii aad ugu kalsoonahay kama noqoshada Soomaaliya ka noqotay bulshada bariga Afrika in maaragtay ummadda Soomaaliyeed ayay ka faa'iideysan doonto bulshooyinka bariga Afrika naftarkeeda faa'iido weyn ku soo kordhin doono baan rajaynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika
oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa marka hore uga mahadceliyay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka isaga oo sidoo kale bogaadiyay shaqada oo golaha shacabka u hayo dadka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika waxa uu golaha shacabka uga warbixiyay sida uu u dhisan yahay baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika iyo howlaha uu qabto. Waxa uuna tilmaamay in muhiimadda baarlamaanka u dhisan yahay ay tahay ka shaqaynta horumarka iyo midnimada wadamada ururka ku jira. Maybe one government which will be in charge of all of these East African community countries, and maybe have one leader. Mudanayaal iyo marwooyin waad ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina. Aniguna aad ayaan ugu faraxsanahay in aan imaado magaalada Muqdisho waliba la igu casuumo kulanka baarlamaanka Soomaaliya. Haddii aan idin sheego faahfaahin ku saabsan dhismaha urur goboleedka bulshada bariga Afrika, siyaasad ahaan waxaan rabnaa in dhammaanteen inta ururka ku wada jirta aan noqono hal dawlad oo ay ku midaysan yihiin wadamada bariga Afrika kuwaasoo leh hal hoggaan. This East African community should be like one family, one country with one. Sidoo kale waxaan u baahannahay inaan noqono dawlad haysata dhammaan waxyaabaha dawlad looga baahan yahay. Ururkan waa urur ka shaqeynaya horumarinta wadamada bariga Afrika. Riyadeennuna waa hal, waxaan nahay hal qoys oo leh hal baasboor. Mustaqbalkan waxaan rabnaa inaan ku darsano inaan la haysano hal lacag oo inaga wada dhaxaysa, taasoo aan ku midaysannahay. Dhammaanteenaba waxay noo horseedi doontaa guul ay dareemi doonaan shacabka wadamada ururkan ku jira. Waa mahadsantihiin. Ugu dambeyntii waxa uu bogaadiyay dadaaladii Soomaaliya ay ku bixisay ku biiritaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika iyo kaalinta baarlamaanka Soomaaliya ka geystay, isagoo dhinaca kale aad u soo dhaweeyay u diyaargarowga baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan xulista xubnaha Soomaaliya ku matali doona baarlamaanka bulshada bariga Afrika. maanta ajendaha wuxuu ahaa labadaas qodob. Labaanka Usmaan waan dhaarinay oo u hambalyeynayna labaan Jenaraal Bashiir. Qodobka labaad wuxuu ahaa inaan ka dhageysano khudbadiisa soo jeedintiisa gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika. aad iyo aad ugu mahadsantihiin si shacabka inooga dhamaatay. hadda ka gaarad dumar waa la joogaa taasina maanta ay noo xiran yihiin. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka soo xiray ayaa uga mahadceliyay gudoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga Afrika oo guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka warbixin ka siiyay howlaha urur goboleedka bulshada bariga Afrika gaar ahaan baarlamaanka ururkaasi. Kulan duco iyo Qur'aan akhris loo sameeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir sanadkii 2019. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kaga qayb galay duco iyo Qur'aan akhris loo sameeyay dadkii ku dhintay musiibadii 24 Julaay 2019 ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow agaasimayaal la taliyaal iyo gudoomiyaal degmo. Uskaan oo ahaa sanadkii shanaad ayaa waxaa loogu duceeyay dhacdadaasi xanuunka badneed dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay ee weli dadka iyo dalka u shaqeeyo ku dhintay qaran nooga dhaawacmeen ayaan u joognaa. intii dhimatay Allah u naxariisto, intii naga dhaawacantana Allah bogsiiyo. waxaan Alla uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala qofka muuminka marka uu dhinto waxa anfacayo waxay tahay waa ducada. marka aan u wada duceyno waan Ilaahay u wada barino
inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigoodan uga yeelo beeraha jannaad ka mid ah jannatulfirdowsana ilaahay uu ku maaragtay uu geeyo aan ilaahay uga wada barina kulligeyn marka waxaan leenahay الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأدخل جنتك الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفت على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa qaabilay ku-xigeenka xogeeyaha qaramada midoobay arrimaha gargaarka iyo wafdi oo hogaaminayo oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed kulanka qaabilaada madaxweynaha oo ay ku weheliyaan wasiiro gudoomiyaha degmada baydhabo iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa looga hadlay arrimaha gargaarka dib u dejinta loo sameynayo dadka barakacayaasha ah iyo sidii qaramada midoobay u xoojin lahayd arrimaha gargaarka sarkaal ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulanka ay wada qaateen madaxweyne cabdicasiis laftagareen iyo ku-xigeenka xogeeyaha qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwii NGO-yadaba arrimaha bini'aadanimada iyo arrimaha horumarinta ay ka hayaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wuxuuna u ballan qaaday in mar walba uu shaqooyinkaas ka gacan siinayo kulankii maanta waxaa kaloo weheliyey kulan gaar ah oo Georgia la yeeshay wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka oo si guud looga wada arkay shaqooyin looga wada hadlayay shaqooyinka socda iyo caqabadaha jiro gudoomiyaha degmada baydhabo wasiiro iyo Georgia waxay ayagana soo booqdeen guriyo 200 ah oo dadka loo dhisay barakacayaasha ah oo laga dhisay magaalada baydhabo laga dhisay ayuu dhiisa ku soo arkay waxaa kaloo soo fiirnay iskoolo waxbarasho ka socoto gaar ahaan iskool dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku jiraan iyo waxaan tagnay xarun nafaqada carruurta loogu talagalay oo ayadana shaqooyinka socda kulankiisa iyo booqashadiisana waxay ku dhammaadeen guul dowladda koonfur galbeed waxay u mahad celinaysaa Georgia Conway booqasho taariikhiga ah oo ku imaaday magaalada baydhabo xilli xaaladaha ay si adkaanayaan aad u mahadsantahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac oo shir gudoomiyay kulan heer wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa shir gudoomiyay shir heer wasiir ah oo looga hadlayay qorshaha casilinta deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyntii bogaadiyay ciidamada qalabka sida guulaha wax ku oolka ah ay ka sameeyeen furumaha dagaalka oo ay ugu dambeeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland oo dhowaan la wareegay deegaana ka tirsan Jubbaland shirkan ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka xasilinta iyo howlaha ka qabsoomay deegaanada lagala wareegay al-shabaab waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay qorshaha wasaaradaha ee ku aadan deegaanadaasi sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada dowladnimada sida waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga guud ahaan warkii telefishinka Ilaac waa naga inta